إن كان تقني حبت برتمها وقوية غارة أفريقيا dal jasiiradeedkan xuduudda la leh wadamada Cameroon iyo Gabon mid ka mid ah toddobada dal ee Afrika looga hadlo luqadda Isbaanishka wadan safka hore uga jira kuwa ugu dhaqaalaha fiican Afrika balse bulshadiisa inta faqiirka ay ka badan tahay inta maalqabeenka waa Jamhuuriyadda Equatorial Guinea oo safka hore uga jirta wadamada ka macaashay wax soo saarka shidaalka tirada dadka dalkan waxaa haatan lagu sheegaa 1,700,000 caasimada wadankuna waa Malabo kuna soo dhawow 8 xaqiiqo ee aynu Equatorial Guinea kaaga warinayno. Equatorial Guinea waa dalka kaliya Afrika ee Isbaanishku yahay luqadda rasmiga ah ee wadanka. Gumaysigii Isbaanishka dalkan oo soo bilowday qarnigii 17aad ayaa sababay in ka badan 68% dadka dalkan ee Isbaanishku u yahay luqadda koowaad ee ay ku hadlaan. Tan cajiibka ah ayaa in wadamada Cameroon iyo Gabon oo dalkani daris dhow la yahay looga hadlo luqadda Frenchiga balse halkan Equatorial Guinea afka koowaad uu Isbaanish yahay xitaa qaab dhismeedka caasimada dalka ee Malabo waa architecture-kii Isbaanishka. mid ka mid ah madaxweynayaasha ugu muddaxileedka dheer Afrika ayaa ka taliya Equatorial Guinea. Teodoro Obiang madaxweynaha labaad ee ay abid yeelatay jasiiradani waxa uu talada inqilaab military kaga wareegay in adeerkii sanadkii 1979 ilaa waagaasna waxa uu dalkan ka qabtay doorashooyin uu u qaabeeyay in keligii ku guuleysto. hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo ururada rayidka ah ee dalkiisu waxay ugu yeeraan dictator waxaana nidaam dawladeedkiisa lagu tilmaamaa kan ugu musuqmaasuqa badan oo waxa la wariyay inuu guryo iyo gawaari luxury ah hantida qaranka uga iibsaday gudaha dalka France. waa dalka ugu dhaqaalaha badan Afrika marka laga hadlayo dakhliga shakhsiga ah oo Equatorial Guinea waa mid ka mid ah dalalka soo saara oilka ugu badan qaaradda Afrika. dakhliga koraya ee gudaha wadankan waxa la wariyay inuu kor u dhaafo $10 bilyan. dakhli shakhsiyadeedka wadanka waxa xogtu sheegtay inuu ka badan yahay $35,000 sanadkii taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha fiican Afrika balse musuqmaasuqa awgiis waxa la wariyay in 70% ay nolol faqri u dhow ku nool yihiin bulshada wadanku halka 40% dadka dalkani ka hooseeyaan deelinta saboolnimada. Equatorial Guinea waxay ahayd dalkii ugu yaraa Afrika ee xubin ka noqday qaramada midoobay. November 1968 ayay Equatorial Guinea xubin ka noqotay qaramada midoobay goortaas oo dalkani ahaa kan ugu yar Afrika dhul ahaan ee xubin ka noqda golaha loo dhan yahay. baaxaduleeda dalkan waxaa lagu sheegaa 28,000 kilomitir sidoo kale hal gobol ma aha ee inta kale guud ahaan dalkani waa jasiirado badda ku dhex yaal taas oo iyana ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka ugu biriga yar dunideena. waa mid ka mid ah dalalka tirada yar ee aan caasimadoodu biriga ku oolayn. caasimada wadankan ee Malabo la yiraahdo waxa ay ku taal jasiiradda la yiraahdo Bioko ee dalkan taas oo 20 mayl u jirta biriga midaas oo ka dhigaysa dalka saddexaad ee caasimadiisu aysan biriga ku oolayn adduunkeena oo dhan. dalalka kale ee caasimadahoodu ay badda ku dhex yaalaan waa Denmark iyo Gambia. caasimad cusub ayay dhisanaysaa dawladda Equatorial Guinea. biriga ayay Equatorial Guinea caasimad cusub ka dhisanaysaa maadaama in caasimadu badda ku dhex taala aysan caado u ahayn wadamada dunideena. kayn ayaa laga dhex dhisayaa caasimada cusub oo magaceeda la yiraahdo Ciudad de la Paz midda oo qorshuhu ahaa in la dhameystiro 2020 balse weli dhismaheedu uu socdo. waxay dawladdu ballan qaaday inay mid casri ah oo nolol dabacsan noqon doonto caasimada cusub. Equatorial Guinea waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican Afrika dhinaca tacliinta. kama hadlayno tayada waxbarashada ama jaamacadaha wadanka hayeeshee qiimeyn ay samaysay gooran fogeyn hay'adda UNESCO ayaa lagu ogaaday in 95% dadka dalkani waxna qori karaan waxna akhriyaan taasoo tustay in wadankani safka hore uga jiro kuwa ugu wanaagsan literacy rate-ka wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya. isirada iyo diimaha dadka dalkan dadka ugu badan wadankan waa isirada la yiraahdo Fang iyo Buba ee isirka Bantuga. diimaha bulshada wadankanna waxa la wariyay in ka badan 80% ay haystaan Roman Catholic halka 5% ay haystaan Protestant halka in ku dhow 4% ay Muslim Sunni ay yihiin.